بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ الكيمبا هالكني ومجن ميديا أنا وحنا هي عبد القادر محمد سورة هذا خيارتنا وحري وصدح يلا باتنك بشهر نوفمبر سنة لبضة كوني وشان يلا باتنك جبهة أورامدا اللي جمع عابو أولا كده علمتا جذا ديجان كأورميا أيام مدوين كودن بيسبب واحد أي سمين يسير وكعب اللارن أو نك إسبلارن تاع ama siday isugu ballaaran lahayd guud ahaanba deegaanka Oromia iyo sidoo kale deegaanada xuduudda la wadaaga dhawaan ay ahayd markii aad halkan ka daawateen warbixino kala gedsan oo aan ku sheegayno in xubno ka tirsan jabhadaasi ay weerar ku ekeeyeen deegaanka Soomaalida hadda dhinaca galbeed ayay markaan diiradooda saarayaan dhinaca bari ee deegaanka Soomaalida ee Oromia ay kala wadaagto ayay dagaal ka huriyeen iyo ismaamulka Dirdhaba haddana mar kale waxa ay qoryahoodii iyo markaasi askartoodii ay u jihaysteen dhinaca galbeed ee deegaanka Oromada markaasi deegaanada kale ee xuduudda la wadaago gobolka ama dawladdeegaanka lagu magacaabo Benishangul Gumuz halka uu xuduudda kala wadaago deegaanka Oromia gaar ahaan degmada lagu magacaabo Bulen oo deegaankaas ka tirsan ayaa waxa lagu soo waramayaa inay jabhadda Oromada ee Ola markaasi ay xoog ku qabsatay degmadaasi saacado kooban ay gacanta ku hayeen sidoo kalena dad ka badan ilaa 20 qof ay halkaasi ku dileen ciidamada dawladda dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay ka dib dhaceen xilliga ay dadka deegaanku ay gurmudka weydiisteen jabhadda Oromada ee Ola waxay muddooyinkii u dambeysay sameeyeen saraw kac ballaaran oo markaasi dhinaca awoodda ciidana waxayna guud ahaanba deegaanka Oromia qayb kamid ah dagaal xoogan kula gashay ciidamada deegaanka Oromia ee liyu boolista loo yaqaano iyo sidoo kale kuwa militariga dhawaan ay ahayd markii qayladaan xoogan ay ka soo yeertay mucaaradka deegaanka Oromia ama siyaasiyiinta ugu caansan ee deegaanka Oromada kuwaasoo si cad u sheegay in xilligan loo baahan yahay in siyaasadda guud iyo awoodda shacabka deegaanka Oromia markaasi la mideeyo waxayna dawladda uu hogaamiyo madaxweynaha deegaanka Oromada Shimalis Abisa ugu baaqeen kulan degdeg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda mucaaradka iyo sidoo kale dawladda isagu uu hogaamiyo kaasoo looga adeegsanayo sidii jabhadda Oromada ee Ola looga dhigi lahaa hubka Oromadana loo mideyn lahaa iyagoo midana ay dalka Itoobiya markaasi siyaasad ahaan ay u wajihi lahaayeen Oromia gaar ahaan jabhadda Ola markan waxay weerartay Benishangul Gumuz waxayna doonaysaa inay gobollo iyo deegaano kala gedsan ay saameyn ku yeelato wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ay ku qaaday dawladdeegaanka Benishangul Gumuz halkan ayaan kula wadaagayaa nala sii joog sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dawladda Itoobiya ee dagaalada kula jira jabhadda Faano ee ku sugan gudaha deegaanka Axmaarada gaar ahaan gobolka Goojam ayaa maanta waxa ay guulo ka sheegteen dagaalo ka dhacay gobolka Goojam waxayna tilmaameen inay qabsadeen gaadiid kala gedsan oo ay jabhadda Faano isticmaalaysay sidoo kalena ay laayeen ama ay dileen tiro xubnaha oo ka tirsan jabhadda Faano labadii maalmood ee la soo dhaafay dagaalo xoogan ayaa gobolada Goojam iyo Gondarba ka dhacay waxayna labada dhinac kala sheeganayeen guulo waaweyn inkastoo aysan jirin ila madax bannaan oo markaasi si rasmi ah u xaqiijinaya labada dhinac cidda guusho ay raacday balse wararka aanu ka helin dadka deegaanka oo warbaahinta kala gedsan si gaar ah magan media ay ula xiriirtay waxa ay noo xaqiijiyeen in dhimashada labada dhinac ay aad u ballaaran tahay jabhadda Faanana laga dhintay sidoo kale ciidamada dawladda loogu sameeyay jidgooyooyin iyo sidoo kale dagaalo gaadma kuwaas oo jabhaddu ay ku qaaday wararkii iyo akhbaaradkii ugu dambeeyay dagaalada dalka Itoobiya jabhadda Faano iyo jabhadda Ola oo markaasi iyaguna awood xoogan ku sii dhaxyeelanaya dalkaas Itoobiya ayaan warbixinteena saaxiib ee kula wadaagaya nagu soo biir oo barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee sidoo kalena markaas soo follow garee bartaan Facebook ku leenahay ee isla Magan Media halkaas oo si maalinle aan akhbaaradkii ugu dambeeyay idin kula wadaago aynu ku bilownay jabhadda Oromada ee lagu magacaabo Ola dawladuna ay u taqaano Shane ayaa waxa ay sameynaysaa sarookac iyo dagaalo xoogan oo markaasi ay isku ballaarinayso gudaha deegaanka Oromada halkaas oo ay awoodeeda inta ugu badan ay joogto waxayna hadda dib u bilowday inay mar kale weerar ku ekayso deegaanada xadka la wadaaga deegaanka Oromada oo ay markaasi ku sugan yihiin horay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka lagu magacaabo City iyo sidoo kale ismaamulka Dirdhaba deegaano hoos yimaada ayay dagaalo ka sameeyeen iyadoo halkaasi ciidamada deegaanka Oromia
kan Soomaalida iyo ismaamulka Dirdhaba ay kula dagaalameen sida ad warbixino hore ku daawateen. hadda siyaasadoodii dhinac kale ayay u bedeleen waxa ay markan aadeen deegaanada galbeedka Itoobiya kan Oromiya ka xiga waxa ayna hadda weerareen deegaano iyo degmooyin hoos yimaada deegaanka lagu magacaabo Benishangul Gumus oo kamid ah deegaanada waaweyn ee dalkaasi Itoobiya. warbixin aanu helayno ayaa waxa ay noo xaqiijisay in tuulooyin iyo degmooyin gobolkaas ka tirsan ay markaas jabhadda Oromada ee Ola ay gacanta ku hayso sidoo kalena saacado kooban ay iyaguba ka talinayeen sida markaas wararku ay noo xaqiijiyeen. warbixin waxa lagu sheegay in gobolka ama dowladdeegaanka Benishangul Gumus gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Matakel degmada la yiraahdo Buulen oo isla gobolkaas ka tirsan inay gacanta saacado kooban u gashay jabhadda Oromada ee Ola markaasina weerar culus oo labada dhinac maleeshiyaadka deegaankaasi iyo jabhadda ku dhexmareen oo halkaas ka dhacay. dadka deegaanka oo warfidiyaanka la hadlay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in jabhadda Oromada ee Ola ay halkaas weeraro lama filaan ah markaas ay ku soo qaadeen magaaladaasina ay guud ahaan la wareegeen isla markaasina ay si ciidamada gargaarka u ahaa ay doonayeen inay soo gaaraan ay ka daaheen taasina ay sababtay inay go'doon gasho magaaladaasi saacado kooban oo ay jabhadda Oromada ee Ola ay gacanta ku haysay. sidoo kale dadka deegaanku waxa ay xaqiijiyeen in ka badan 40 qof oo shacab ah oo aan waxba galabsanin lagu dilay weerarkaasi sidoo kalena markaasi lagu dhaawacay tira intaas ka badan dawladuna ilaa hadda aysan wax wara ka soo saarin. dadka ku sugan qabalaha lagu magacaabo ama tuulada lagu magacaabo Bakuji ayaa sheegay inay ku hareeraysan yihiin xoog hubaysan oo khatar weyn ku haya dadka deegaanka ee gobolkaasi waxayna codsadeen in ciidamada ammaanka ee dawladdu ay si degdeg ah u soo gaaraan gobolka la yiraahdo Matakel oo deegaanka Benishangul Gumus markaas ka tirsan degmada hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada jabhadda Oromada ee Ola ee la yiraahdo Buulen waxa la tilmaamay inay kumanaan qof oo markaas ka barakacay weerarada ay jabhaddu ku qaaday ay ku sugan yihiin banaanka iyo sidoo kale goobo markaas ay dadku isku urursadeen. kooxahan hubaysan ee ka soo jeeda deegaanka Oromada ayaana la tilmaamay inay muddooyinka u dambeysaba si aada dagaalo ugu jireen galbeedka deegaanka Oromiya iyo sidoo kale halka iska galaan kan Benishangul Gumus. warbixintu sidoo kale waxa ay muujisay in xasilooni darro ay gobolkaas ka jirto sidoo kalena dadka deegaanku markaas ay ku jiraan xaalad cabsi oo aad u xoogan jabhadda Oromaduna ay weerar ka geysanayso tuulooyin ka tirsan iyo magaalooyin ka tirsan gobolka ama dowladdeegaanka Benishangul Gumus. ciidamada dawladda ayay ugu baaqeen inay soo caawiyaan jabhadana ay ka qabtaan balse waxa jirta in jabhadda Oromada ee Ola muddooyinka u dambeysaba ay si aad awood xoogan uga soo baxaysay ama ay wala hortageysay ciidamada dawladda dalka Itoobiya kuwaas oo muddooyinka u dambeysaba xakameyn la in markaasi ay gabi ahaanba soo afjaraan markaasi jabhadda Oromada ee Ola. dhinaca kale jabhadda Oromada ee Ola ee dagaalka ku qaaday deegaanka Benishangul Gumus ayaa waxa la sheegay inay jidgooyooyin waaweyn ku sameysay deegaanada markaas ay hadda ku sugan tahay oo gobolkaas ka tirsan sidoo kalena ay diiday inay dadku isu gudbaan iyadoo la tilmaamay inay ka baqayso in ciidamo gurmada oo kuwa deegaankaasi iyo sidoo kale kuwa militariga ee gobolkaasi ku sugan ay isu kala gudbaan. waxaana la tilmaamay in xaalad qasan hadda ay gobolkaasi ka jirto sidoo kalena ay xiisadu cirka isku sii shareeri karto marba mar ka dambeysa. jabhaddan Oromada ee Ola muddooyinka u dambeysaba awood xoogan ayay la soo baxaysay gobolka Oromada ayayna markaasi meelaha ugu badan ee weerarada ay ka geysanaysay ahaa ka Soomaalida ismaamulka Dirdhaba iyo sidoo kale ismaamulka ama dowladdeegaanka Eririda ayaa iyaguna dhibana u noqday jabhaddan Oromada ee Ola halkaas oo ay khasaare nafeed iyo sidoo kale mid dhaqaalaba ay u geysteen. ciidamada militariga iyo sidoo kale kuwa jabhadda Faano ayay labadii maalmood ee u dambeysay waxa ay dagaalo xoogan ku dhexmarayeen gobolka Goojam oo markaas ka tirsan gobolada waaweyn ee deegaanka Axmaarada halkaas oo muddooyinka u dambeysay labada dhinac dagaalo xoogan ku dhexmarayay. dagaaladan ugu dambeeyay ayay hore jabhadda Faano waxay u sheegatay inay guusha ugu weyn iyagu ay markaas gaareen balse war hadda ka soo baxay taliska ciidamada militariga ee gobolkaasi ayaa waxa ay ku xaqiijiyeen inay iyagu yihiin cidda guusha gaadhay waxaana la soo bandhigay sawirro iyo sidoo kale xubno ka tirsan jabhadda Faano oo ay dawladdu markaasi gacanta ku dhigtay. gaadiidkii ay sidoo kale jabhadda Faano isticmaalaysay ayaa la tilmaamay inay ciidamada dawladda u gacan galeen waxayna ciidamada markaasi militarigu ku faaneen inay guulo ka gaareen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay. warbixin lagu daabacay baraha bulshada
ee markaasi taliska ciidamada militariga dalka Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay in khasaare xoogan ay ciidamada militarigu u geysteen jabhadda Faano. taliyaha qaybta 6aad ee taliska ciidamada militariga dalka Ethiopia oo ka howlgala gobolka Gojam gaar ahaan degmada lagu magacaabo Mikael ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay hantida iyo hubkii ay kooxda xagjirka adeegsanayeen waa kooxda Faano dabcan kadib markii la wiiqay lana burburiyay ciidan ballaaran oo jabhadaas ka tirsan. waxaa la sheegay ama ay ciidamada dawladdu sheegeen in 15 xubnood oo kooxahaas ka tirsan la baabi'iyay in ka badan 16 kalena la dhaawacay gacanta dawladana lagu hayo. gaadiid kala gedsan oo ay ku jiraan ambalaas iyo sidoo kale mootooyin iyo gawaarida waaweyn iyo kumbiyuutarro ayaa dawladdu tilmaantay in markaasi ay ka qabsatay jabhadda Faano sida ay dawladdu ku shaacisay warbixin ay daabacday. waxaa sidoo kale dawladdu sheegtay in qaybta taliska waqooyi bari ay iyaguna gubeen ama ay baabi'iyeen xarumo ay lahaayeen iyo saldhigyo ay ciidamada jabhadda Faano ay ku lahaayeen gobolkaasi. waxayna tilmaameen in labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladii halkaasi ka dhacayay ay dawladdu si xoogan markaasi ugu jabisay ciidamada jabhadda Faano. inkasta oo ay dagaaladu weli ka sii socdaan gobolkaasi haddana dawladdu waxa ay sheegatay inay ciidamo aad u tiro badan oo jabhadda ah markaasi la laayay kuwa noolna la qabtay sidoo kalena kuwa kale lagu raad joogo kuwaasoo la sheegay inay ka baxsadeen goobta uu dagaalku ka dhacay. warbixinada ay dawladdu soo saartay weli ma jiro ilo madax bannaan oo si rasmi ah u markaasi xaqiijinaya balse waxaa la ogyahay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo xoogan ay halkaas ka dhaceen. horey ayaad halkan Magan Media uga daawateen in sheegasho markaas jabhadda Faano ay ku sheeganaysa in dagaaladii ugu dambeeyay ay iyagu ku guuleysteen ciidamada dawladana ay ka dileen in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan kuwa militariga ee gobolada Gojam iyo kan Gondar markaas ku sugnaa. dawladuna hadda waxa ay leedahay annaga ayaa markaas u guuleysanay la islama diidana in gobolku xaalad qalalaasa uu ku jiro sidoo kale waa la qirsan yahay in gobolka dagaallo xoogan ay ka dhaceen balse meesha waxaan jirin ila madax bannaan oo si rasmi ah dagaalada u xaqiijin kara. jabhadda Faano waxay hore u sheegatay inay iyadu ka guuleysatay ciidamada dawladda waxayna sidoo kale sheegteen inay gacanta ku hayaan saraakiil militariga dawladda Ethiopia ka tirsan oo markaasi ay dagaalka ku qabteen. baahinta ugu badan iyo sidoo kale waxyaabaha qasaaraha dawladda inay u geysteen ay ku sheegeen ayaa waxay ahayd kadib markii ay dhexda u galeen ciidamo gurmada oo la sheegay inay dhinaca gobolka Gondar ka yimaadeen rabeen inay u gurmadaan ciidamada dawladda kale ee ku sugan gobolka Gojam halkaas oo maalmihii u dambeysay dagaallo xoogan markaasi ay ka socdeen. intaas ayaa saaxiibayaal barnaamijkan koobanna kusoo gabagabeynaya waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyadeena nagu soo biro barteena Magan Media subscribe ku samee sidoo kale muuqaalkan la garay lana sii wadaag saaxiibada oo sii share garay si uu meel dheer u gaaro intaan kulmi doona muuqaalkeena xiga waana Cabdulqaadir Maxamed oo idin leh sidaas nabaddiino.